Assalaamu calaykum. Wataxanaheeni dembi baare aynu kaga hadli jirnay dhacdooyinka dilalka ah ee ka dhaca daafaha dunida. Dhacdadeena maantana waxaa ka dhacday dalka Japan, waana dhacdo ilaa maanta hal xidhaalo ku noqotay askarta ama booliska dalka Japan. Ilaa maantana lama garanayo ciddii geysatay dilkan. Anigu walaalkan Cabdimajiid kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. fadlan haddaad ku cusub tahay kanaalka kusoo biir like-na saa mahadsan. It's incredible. Markii uu sanadku ahaa 2013 bishii 12 waxa uu qoyska Yazawa uu isu diyaarinayay ka qaybgalka xafladda sanadka cusub ee ka qabsoontay dunida oo dhan. Waxa uu qoyskan ka koobnaa aabe, labadiisa carruur iyo hooyadood, waxayna habeenkaas ay ku qaadanayeen xafladda gurigooda oo ay ku qabsanayeen. Waxaana uu ahaa aabahaas habeenkaas mid ku mashquulsan laptopkiisa si uu u fuliyo amaba u qabto shaqooyin u yaalay, halka hooyada qoyskan iyo inanteeda amaba gabadheeda ay ku jireen qol ku yaalay dabaqa hoose. Wiilkii ugu yaraa xaafadana waxa uu ahaa mid ku ciyaaray qaybta sare ee guriga amaba dabaqa labaad. Habeenkaas oo ahaa habeenkii ugu dambeeyay nolosha qoyskan Yazawa adduunka, yacni gebi ahaantoodba waa la dilay. Waxaa subaxii labaad habeenkaas soo wacday qoyskan Yazawa gurigoodii islaan ayay ah ama macooyo u ah ciyaalkan. Islaantaas oo dhashay Yasukuwa oo ahayd carruurta hooyadood. Haddii ay soo wacdayna taleefankii lagama qaban, haddana way ku celisay balse lagama qaban taleefankii gurigii. Isla markiiba waxay carruurtan ayeedood amaba islaantan carruurta hooyadood dhashay go'aansatay inay u ambabaxdo oo ay aado gurigii inanteeda si ay u soo hubiso xaaladda ka jirtay guriga qoyskaas. Waxay aaday islaantii guriga oo ku yaala meel ka mid ah magaalada Tokyo ee dalka Japan. Haddii ay gaadheen islaantii gurigii inanteeda amaba gabadheeda, waxay ku garaacday albaabka balse lagama furin. Garaacidii albaabka intaas kadib oo ay ku celcelisay dhowr jeer garaacidii, balse nasiib wanaag amaba nasiib wacnideeda islaantan waxa ay haysatay amaba sidatay furo isbeer ah, koobi amaba furo labaad oo guriga lagu furi karo. Haddiise ay furteen albaabkii islaantii, xafaja argagax iyo naxdin leh ku noqday. Waxay ku aragtay gurigii, waxay islaantii amaba hooyada dhashay Yasukuwa ay aragtay aabihii qoyska oo naf baxay amaba dhintay, iyo inanteedii amaba gabadheedii Yasukuwa iyo inantii yareed ee ay ayeeyda u ahayd oo dhiigoodu dhulka qulqulaya labadoodiiba. Haddii ay dabaqii labaad ee guriga fursay islaantii iyadoo raadinaysa wiilkii ugu yaraa ee qoyska, waxay la kulantay isna isagoo dhintay amaba naf baxay. Isla markiiba waxay islaantii la xidhiidhay booliskii lana socodsiisay dilka meesha ka dhacay. Waxaana uu wada gaadhay dilkii reerkani dalka Japan gebi ahaantiina, waxaana dilaagani amaba dilkani ku keenay dalka Japan cabsi aad u xooggan oo ka dhana sida foosha xun oo u geystay dilka. Waxaana la yaab ku noqotay dadkii ay jaarka ahaayeen qoyskan sababta lagu dilay, maadaama uu ahaa qoyskani mid aan dhib badnayn, cidna aanay islayn. Haddaba waxaa isweydiin mudan qaabka loogu geystay qoyskan dilka iyo qofka dilka u geystay qoyskan cidda uu ahaa. Baarid dheer kadib, boolisku waxa uu la wadaagay dadka qaabkii u dhacay dilka qoyskani, waxaanay sheegeen inuu sida tan soo socoto u dhacay dilku. Saacaddu markay ahayd 10:15 habeenimo, waxa uu aabaha qoysku isticmaalayay laptopkiisa kana diray email. Intaas kadib waxaa geed ku ag yaalay guriga qoyska Yazawa soo fuulay amaba soo koray dilaagii, waxaana uu daaqada uga soo dhacay amaba uga soo galay qol uu ku jiray wiilkii xaafadda ugu yara ee Harry. Isla markiiba dilaagii waa uu dilay Harry isagoo isticmaalayay gacmihiisa oo uu ku qabtay qoortiisa amaba ciijinaya Harry ilaa uu ka dhimanayay. Balse aabihii qoyska ayaa waxa uu maqlay shanqadh ka soo yeedhay dabaqa labaad ee inankiisu saarna ee guriga ku yaalay, waxaana uu aaday dhankii dabaqa labaad. Haddiise uu soo koray jaranjartii, waxaaba ay iska hor yimaadeen dilaagii, waxaana dhex maray dagaal, waxaana dhaawac uu u geystay aabihii qoyskani Yazawa dilaagii. Balse markii uu arkay ninkan dilaaga ahi inaanu aabaha qoyska Yazawa uu iska caabinayo, waxa uu ku dhuftay mindi oo uu kaga dhuftay madaxa, waxayna sababtay mindidaasi inuu aabahaasi dhinto. Intaas kadib waxa uu soo waajahay dilaagani amaba dilaagii hooyadii qoyska Yazawa iyo inanteeda Nini oo ku jiray qol lana socon waxa ka dhacayay guriga, waana uu galay dilaagii soona dhaafiyay amaba dilay labadii qof naftoodii, labadii qof ee u harsanaa. waxaana uu sidaa kusoo afjaray nolosha qoyskii Yazawa. waxaana la sheegay hooyada qoyskan iyo inanteedii Nini ay ahaayeen kuwo si xun u dilay dilaagani, waxayna ay u fasirteen askartu in uu nacbaa dilaagani dumarka. haddaba waxaynu ogsoonahay amaba caado u ah dadka wax dila isla marka ay dilaan dadka inay goobtaas
ay falka ka geystaan si dhaqso leh uga baxaan si aanay cidi u arag. balse arrinka yaabka leh ayaa ahaa inuu arrinkaas aynu ka soo hadalnay cagsigeeda amaba kasoo horjeedkeeda sameeyey dilaagani, oo uu kusii nagaaday amaba uu sii joogay guriga muddo dhan 10 saacadood, kaas oo ahaa mid isticmaalayay laptopka aabihii qoysku isticmaalayay intaanu dilin ka hor, marna uu ahaa mid daweynaya dhaawacii uu u geystay aabihii qoyskani. intaas kadib ayaa uu ka baxay dilaagani guriga. hase yeeshee sheekadaas aynu kasoo sheekaynay oo dhammi waxay askartu usoo bandhigeen shacabka iyagoo raacinaya daliilo caddaynaya waxaas oo dhan. haddana dilaagaas gacanta laguma dhigin. markii ay baadhitaan lagu sameeyey dhiiggii ninkan amaba DNA-gii, waxay sheegtay askartu inuu kasoo jeedo ninkani jinsi isku dhafan, yacni inuu kasoo kala jeedo qaaradda Yurub iyo qaaradda Aasiya. xitaa waxay soo saartay booliska runtii laga sameeyey dharkaas uu xidhnaa habeenkaasi dilaagu, balse waxaas oo dhan ma ay tilmaamin amaba caddayn sheeginna magaca iyo wejiga dilaagan. waxayna dadku usoo bandhigeen booliska dalka Japan abaalmarin dhan 3 milyan oo ah lacagta dalkaas laga isticmaalo Japan, ciddii soo sheegtay inay siin doonaan, balse lama helin ilaa maanta dilaagan, waxaana uu hal xidhaale aan la furin ku noqday askarta dalka Japan. muuqaalkana maanta taas uu ka egyahay. intaynu ku kulmayno muuqaalka xig waxaad ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.